بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنا وناكسن dhageystayaal qodobada wararkan idinkugu haynana waxa kamida in ka badan 8,000 oo arday ah oo aan u fariisan imtixaanaadka KCPE-da wasaaradda shaqaalaha ee dawladda Soomaaliya oo maanta fasaxday shaqaalaha dawladda iyo 3 qof oo lagu dilay toogasho ka dhacday wadanka Mareykanka subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo talaada ah taariikhda waxay ku beegan tahay 20 bisha 11 ee November 2018 kusoo dhawaada warkaas oo faahfaahsan wasiirada wasaaradda waxbarashada ee dalka Amina Mohamed ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan 8,347 kamid ah ardaydii sanadkan isdiiwaan gelisay aynan u fariisan imtixaanaadka fasalka 8aad ee dugsiga hoose dhexe KCPE-da tirada ardayda ee imtixaanaadka ka maqanayay hoosta ka xariiqday in 14.8 hoos ay u dhacday maadaama sanadkii hore ay tiradaasi gaaraysay 9,726 arday Amina Mohamed waxa ay sheegtay isla markaana ay saraakiisha wasaaradda u qaabilsan xaqiijinta tayada ku amartay in ay dabagal ku sameeyaan ardaydaasi si loo ogaado sababta rasmiga ah ee keentay inaysan u fariisan imtixaanaadkii ay isku diiwaan geliyeen sidoo kale wasiirada ayaa waxa ay sheegtay in sanadkan dawladda ay dhaqaale dheeraad ah siisay dugsiyada ay dhigtaan ardayda qaba baahiyaha gaarka ah iyo kuwa isku dhafan imtixaanaadka KCPE-da ee sanadkan ayaa waxaa sameeyay 2,495 ardayda naafada ah iyadoo oo midkii ugu horeeyana uu helay buundo gaaraysa 446 dhibcood guud ahaan dalka arday ay tiradoodu gaarayso 1,052,334 ayaa sanadkan u fariistay imtixaanaadka fasalka 8aad ee dugsiga hoose dhexe ee KCPE-da wasaaradda tacliinta ee dalka Amina Mohamed ayaa intaasi ku dartay in xulashada ardayda ku biiraya dugsiyada sare la bilaabi doono 3 bisha December ee sanadkan dhankaasi iyo gobolka waqooyi bari haddii aan eegnana ilaa iyo hadda inta la og yahay gabadhii ugu horeysay ee natiijada imtixaanaadka KCPE-da ee ismaamulka Mandheera ayaa waxay heshay buundo gaaraysa 414 sidoo kale waxaa jira wiil asna helay 401 wariyaheena ismaamul goboleedkaasi Mandheera Maxamed Sheekh Lafageri ayaa labada arday mid kamid ah waalidiintiisa qadka telefoonka kula xiriiray بسم الله الرحمن الرحيم أنا زكريا على آدم بلدها أنا دكتور سكول كريمبورا أكاديمي كلاس كلابان سكول كوسو كلي بكا حد وان كده الحمد لله إلهي ما تسكله حتى نفوز 0-1 هري وأنا فرحتين واحد هري wadahay ka waran shucuurtaada iyo rajadii aad imtixaanka ka qabtay markii aad qaadanaysay natiijo ahaan waxaad keenaysay maxaad filaneysay markii hore hadii aan filaynay inaan adii magsan helayo doctorada alxamdulillah ilaahay aan ku mahadinayaa marka labaadna waxaan mahad soo jeedinayaa macallimiinteedii ku soo faaday iyo waalidiinteedii iyo dadkii dhamaalo ee lacagtii soo bixinaya iskuulkan aan mahad u celinayaa gaar ahaan macallimiintii soo bartay waxaa kamid ah macallin yiraahdo Mr. Silvester oo zaid inuu soo dadaalay iyo director kulli ma celinaya ani waxaan dhihi lahaa mago ilmahan hadda soo socdo oo galaad ay soo gaarayo inay dadaalaan oo adii fursadan helay oo macallimiinta aan uga faa'iideysanayna in ayagana uga faa'iideystaan lagu daydaan oo dayo mudana oo noqon dadkii ayagana isaas noo daydaan oo annagana soo fiirsadaan rabaa in bora mar walba isaas hormar marka maxaad jeclayd oo qaban jirtay markii aad cidda joogto maxaad qaban jirtay ana waxaan jeclaa inaan wax akhriyo jeclaan jiro oo nal xisaabta iyo wax maadooyin lagu adag aan suubiyo macallimiinta dhiirigeliyaan inta ma hagaajin kartaa ee tan suubiyo saasaan rajaclaan jiraan inaan wixii aan maadada aan ka liid inaan suubiyaan jeclaan jiro macallinka casirka markuu dhameeyaan su'aal weydiin jiray waxaan fahmin marka waan kaan tagay revision kaygaan suubsan jiray qofna lama hada jirin dadna ma dhibi jirin kitaabka quraanka iska akhrisin jiray misaajkana iska kan jiray shanta salaad saas aan marka saasaan ku dabaasay ilaahay noo isto kalmay magacayga waxaa Xamida Aftiin Kulo matarajo Junior Academy oo ku yaala magaalada Ramo Mandheera aan ka dhimay oo KCPE ka qaaday oo max 414 kale zaid oo faraxan waxaan u mahadcelinayaa hooyaday aabay iyo macallimiintaydii oo meeshaan soo gaarsiiyay markaan wax shaqo qabanaynin waxaan akhrisan jiray
waxaan jecelahay markaan secondary dhimay inaan ka hoosti daktarnimada. أنا وحليدها أفتين كلو دوبة. أنا جوحنا هاي معلن سكول برينسيبل إلوا سكندري سكول. عجبتني وأنا يردام حميد أفتين كلو. جبت وحيد جتي مترجيو جونيور أكاديمي أورام وكيالا وهاي كانت 414 ماكس. وقرتي مركا درين كذا كورن. الحمد لله إلهي بمهد إسكالها زايد إنه فرحسن هاي خورتي كيو قول رئيس إلهي بان أقوم هادلنا يا تنلا بعد هو يده لول آدم أصمان وزايد قدو ده شيء يعني أقوم معلمنا يا تنسى بحاد معلمين تودي أيان زايد أقوم معلمنا يا هذا إن شاء الله وحنور رجينا يا إن ما رك تسكوش يعني لا عزوسهلا تختار إن شاء الله يسمعك لفكر aad buu u mahadsan yahay oo khadka telefoonka kula xiriirayay labada arday ee ismaamulka Mandheera ilaa ay hadda la xaqiijiyay inay ugu horeeyaan iyo mid ka mid ah waalidiintooda madaxa fulinta ee guddiga adeega macallimiinta dawladda dhexe u qaabilsan TSC Mrs. Nancy Macharia ayaa waxa ay sheegtay in barayaal dhan 32 shaqada laga eeriyay kadib markii la ogaaday inay u galmoodeen qaar ka mid ah gabdhihii ay wax barayeen guddiga TSC ayaa talaabadan qaaday bishii hore ee Oktoobar waxayna Mrs. Macharia intaasi ku dartay in talaabo habboon laga qaadayo macallimka ama maamulaha haddii uu ka xadgudbo mas'uuliyadda uu qaaday oo uu faraxmayn ku sameeyay ardayda waxay carabka ku dhufatay in magacyada macallimiintaasi la soo bandhigay halka guddiga TSC-na ay walaaca ka muujinayaan tirada gabdhaha uurka qaaday ama xilliyada imtixaanaadka u mulay oo sare u kacday maamulayaasha dugsiyada dawladda iyo xarumaha waxbarashada ee sida gaarka loo leeyahay ayay ku boorisay inaysan macallimiintaasi shaqaalaysiin waxay kaloo dawladda ama waaxyaha kale ee dawladda ayay u soo jeedisay in barayaashaasi ay sidoo kale kula xisaabtamaan falalka anshaxumada ah ee ay geysteen madaxa fulinta ee guddiga TSC ayaa waxa ay waalidiinta ku eedeysay in aysan si buuxda uga soo bixin mas'uuliyadda saaran oo ay macallimiinta ka doonayaan inay caruurtooda wax walba u sameeyaan waxay hoosta ka xariiqday in waalid kasta ay mas'uuliyad ka saaran tahay la socodka dhaqdhaqaaqa caruurtiisa gaar ahaan gabdhaha tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan 122 ah macallimiin arrimahan lala xiriiriyay ayaa shaqada laga eriyay sanadkii 2016 tiradaasi ayaa ahayd 22 halka sanadkii kasii horeeyay ee 2015 barayaashaasi ay tiradoodu gaaraysa 226 kadib markii ay sameeyeen dambiye kala duwan sidaa darteedna shaqada looga eriyay wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM gudoomiyaha degmada Balad Xaawo ee gobolka Gaduud dalka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda ee ku sugan gobolkaasi ayaa waxa ay ku dhawaaqeen awaamir cusub oo lagu soo rogay shacabka degmadaasi ku nool mas'uuliyiintan waxay digniin u direen shacabka iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada Balad Xaawo waxayna sheegeen in aysan al-shabaab u doonan garsoor iyo arrimo kale hadii kale ganaax ay mudan doonaan waxay sheegeen in qof kasta oo lagu arko isagoo la macaamilay al-shabaab lagu ganaaxi doono lacag dhan $3,000 sidoo kalena ciqaab adag ay kala kulmi doonaan maamulka degmada Balad Xaawo iyo ciidamada ammaanka ee halkaasi ku sugan gudoomiyaha degmada Balad Xaawo wuxuu sheegay in maamulka degmadaasi iyo xogaga al-shabaab uusan wax heshiis ah ka dhaxaynin sidaas darteedna aan marnaba la ogolaan doonin in dadka ku nool degmada Balad Xaawo ay la macaamilaan xogaga al-shabaab qofkii shabaab aado oo degmadan ka tago oo aado oo u xukun tago ama intay u yeeraan aado ama sabab kasta ka ah $3,000 baa xukumayna marka uu soo noqdo waa message degmada anigu gudoomiyaha degmada aan gaarsiinayo hadhow la dhigi karo oday baa la xiray oday baa la qabtay wakiila shabaab inta ma xukumo shabaab inta hadduu xukumo oo qabsado weelka hayba hadduu qabsado xukunka naga qaato hayr xukumo ugu rabaa in ku sameeyo hayla taliya waxaan sheegayaa dadka Balad Xaawo ilaahay baa leeyihiin ilaahay adoonkaadu idin isku xidho waa qodob inaan cunana waynin wax ay in qorana aan waynin isku xidho marka reer Balad Xaawo wada fiican iyo maarka shaqo fiican ayuu maamulkiina u horseeday nidaamka dawliga ah iyo bilaw adinkana inaad ku taageertaan baa
waxyaala tilaabo hadii la qaado caqabado waa imaanaya waxaa soo baxaya waxaasoo dhan annaka waxaan diyaar u nahay in aan ka hortagno oo laga qabto ayaan diyaar u nahay. maalmihii lasoo dhaafay dadka ku nool degmada beled xaawe ee gobolka Gedo Soomaaliya ayaa waxay hadal hayeen arrintii la xiriirtay kadib markii maamulka degmadaasi uu soo rogay amar xaasaska al-shabaab iyo caruurtoodaba looga saarayay beled xaawo. sidoo kale shabaabka ayaa dhankooda sheegay in ay magaalada godoomin doonaan. dhanka kale waxay faahfaahinno dheeraada ka soo baxayaan dagaal ciidanka dowladda Soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhexmaray deegaan ku yaala duleedka degmada Baardheere ee isla gobolkaasi Gedo. dagaalkaasi ayaa yimid kadib markii xogo ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan deegaan lagu magacaabo Faxfaxdhuun oo ku yaala duleedka degmada Baardheere sida ay baahisay warbaahinta maxalliga ee Soomaaliya. dadka deegaanka waxay sheegeen in dagaalkaasi uu muddo saacado ah socday khasaare kala duwan oo ka dhashay jiro. mas-uuliyiinta gobolka Gedo ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ay dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab isla markaana uu khasaare ka dhashay dagaalkaasi. ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha dhabta ah ee dagaalka ka dhashay inta uu gaarsiisan yahay. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay guud ahaan maanta fasaxday shaqaalaha dowladda sababo la xiriira dhalashada nabigeena suuban nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee. waa warqad ka soo baxday xafiiska wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dhalashada nabiga oo la weyneynayo darteed nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee oo ku beegan 12 bisha Mawliid ee sanadka 1440 oo kuna beegan talaadada maanta ah taariikhduna ay tahay 20 bisha 11 shaqaalaha dowladdu ay fasax yihiin. wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda Soomaaliya waxa ay u sheegtay shaqaalaha dowladda iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay in talaadada maanta ay howlaha guud ka nasanayaan. sidoo kale waxay hambalyo ku aadan dhalashada nabiga u dirtay shaqaalaha dowladda iyo dhammaan dadka muslimiinta ah iyo shacabka Soomaaliyeed intaba. wararka naga soo gaaraya magaalada Chicago ee dalkaasi Mareykanka ayaa sheegaya in hubaysan uu toogasho ku dilay 3 qof. toogashadaasi oo markii dambe ninkii geystay la dilay isna ayaa ka dhacday isbitaalka lagu magacaabo Mercy ee magaaladaasi ku yaala. waxaana dadka dhintay isugu jireen sarkaal booliis iyo 2 qof oo kale. sidoo kale galbeedka Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhacday toogasho kale oo 1 qof looga takhalusay 3 kalena dhaawacyo ay soo taliyaha booliiska ee magaalada Chicago ayaa waxa uu sheegay in falkaasi uu kasoo bilowday banaanka isbitaalka kadib muran dhex maray 2 qof oo ku sugnayd goobta baabuurta la dhigo. sarkaalkan ayaa intaasi ku daray in haweeney ka mid ah dadka la dilay oo xiriir kala dhexeeyay qofka eedeysanaha ah